dhibaatada ka dhalata qaadka maaha dhibaato yar, waa dhibaato aad iyo aad u ba'an hadday noqoto dhanka dhaqaalaha iyo dhan kastaba. Adduunka meelo fara badan ayaa laga isticmaalaa oo Soomaaliya ay ka mid tahay. Waxaanan ogahay haddii aad Soomaali tahay inaan lagu weydiin karin muxuu qaad yahay, sababtoo ah waxaad tahay mid aqoon u leh. Malaayiin qof ayaa isticmaala haddii ay noqoto ka ganacsi iyo weliba arrimo kale. Dad fara badanna waxaa galay nolol maalmoodkoodii, waxaanay garan waayeen meelay uga diga rogtaan, taasoo weliba dib kuugu calinaysa su'aashaadii ahayd qaadka la joojiyo. Haddii aad maqli jirtay su'aal lagagama jawaabo, tani waxay suurtagal ka dhigaysaa in su'aal kale lagaga jawaabo. Balse dhaqaale aad u fara badan ayaa nagaga baxa, waxay naga soo gala dhaqaale aad iyo aad u yar marka loo eego kay nagaga baxa inaga. Geedka qaadka la yiraahdaa waa uu ka baxaa dhulkeena hooyo, laakiin wuxuu nagaga yimaadaa inaga badankiisu waddankaynu jaarka nahay ee Itoobiya. kaasoo dadka qaadka cuna ay sheegeen inuu qaadka Itoobiya ka manfac badan yahay qaadka ka baxa ciideena. Si kastaba ha ahaatee, dhibaatadu inagu hayaa ma aha mid kow iyo laba la odhan karo. Waxyeellada qaadka waxay tahay dhammaanteen midaan ka wada warqabno. Boqolaal qoys amba kumanaan qoys ayaa ku baaba'ay. Dad fara badanna wuxuu ka hor istaagay horumarkoodii mustaqbal ay ku horumari lahaayeen. Kuwo fara badan oo dhaqaale haystayna wuxuu dhaqaalahoodii gaarsiiyey ilaa heerkii ugu hooseeyay. Dhinac kale marka laga eegana wuxuu noqday geed inala saaxiibay oo ka mid noqday nolosheenii, taasoo weliba suurtagal ka dhigaysa in la yidhaahdo qoysas fara badan ayay nolol maalmeedkooda ugu tiirsan yahay geedka qaadka loo yaqaan. Adduunyada waxaa jira cudurro aan dawo lahayn balse lala noolaan karo, taasoo shabahaysa nolosha aynu ku noolahay ee la noolaanshaha geedka loo yaqaano qaadka. Culimo fara badan ayaa ka hadashay, abwaani fara badan ayaa ka gabiyay, dad fara badan oo wax ka rada ayaa isku dayay inay dadka ka waaniyaan waxyeellada qaadku oo leeyahay. Culimadeenu waxay sheegtay inuu qaadku ka mid yahay waxyaabaha muxaramaadka ka laga eego amaba laga istaago dhanka diinteena suuban. Isticmaalka qaadka waxaa loo kala badsadaa sida loo kala jeebo yahay, taasoo keensatay qof kasta inuu ilaa shilinka ugu dambeeyay ee jabadiisa uu ku jiro uu ku isticmaalo aanu soo hoyanin. Waana dhibaatada qura ee aad moodo inay dadku ay raalli ka yihiin. Marar fara badan waxaa la isku dayay in la joojiyo, balse may suurtagelin. Dad fara badan waxay aamineen la'aantii inaanay waxba qaban karin. Adduunka meelo fara badan ayaa laga isticmaalaa, meelo kale oo fara badanna lagama yaqaano qaadku waxa uu yahay. Adduunka horumaray qaadka waxa uu yaqaanaa inuu yahay aafada ugu xun, waxaanu ku maraa si kootarbaana meel aad u tiro yar. Waxaana ay dowladaha horumaray sheegeen inuu yahay daroogada ugu xun ee adduunyada korkeeda taalla. Haddaba Cabdikariin Maxamed Guhaad oo ku magac dheer Gaabane ayaanu wax ka weydiinay dhibaatooyinka qaadka inuu nooga sheego midhiya laba. Cabdikariin ku soo dhawow. Wallaahi in dhibaatada qaadku aad u badan tahay, hadday noqoto in caafimaad iyo hadday noqoto dhaqaale, in labaduba magarasa in wax ugu yeela in qaadku haddaan aan ku soo koobo xagga in caafimaadka wax ugu yeela in daciifadiyo ku kaxaynayo maskaxdiyo ugu doorinayo in waxyaabo badan magarasa ayuu qaadku wax yeelaya caafimaadka. sidaa daraadeed dadka waxaan kula talinayaa inay qaadka iska daayaan. waxaa kale oo aan ka hadli doonaa xaggan iyo dhaqaalaha. qofka dhaqaalihiisii ayuu cunaya, maalinba maanta ka dambaysa dhaqaalihiisii qofka uu xaraam ku shaqaystay ayuu ku bedelayaa xaaraan. waxaan la iska daayay qaadka.